جزاك الله خيرا خير الجزاء شيخ سائل كان وحليه قف قال يا العق يقول قف كينا وان واعي إلا أهل كيسي وان رادي وان واعي العق تاسي سيدا لو قدي كرا قف كاسي الحمد لله وادو صدقين العق تاس صدقة بحين مال في عني يا خير بعد قدري isagoo gaal aad u sadaqayn marda isagii weyday gaalku xoolaha sadaqada uu la baxo iyo khayrkiisa wanaagga uu sameeyo horta isaga inuu gaalnimo ku dhiman waruma haysido ilaahay inuu hanuuniyo islaama laga yaaba hadii ilaahay ba hanuuniyo islaamana sadaqada xoolihiisa loo bixiyayna aakhira ajir buu ka heli haddaad u bixin weydana aduu aakhira xoolihiisa ku qabsan oo ajirkaagu ka qaadan sa adigu u badbaado isagana muslim haduu noqdo aakhira ajir uga helo sadaqada faa'iidadaas horta way leedahay ta labaad sadaqada qoy khayraadka oo qofka oo gaala sameeyo mararka qaarkood sabab inuu hanuuno u noqota ilaahay khayrka waafaji nabiga rag baa soo islaamay nin baa weydiiyay rasuulka ilaahay intaan soo islaamin sadaqa badan miskiin la taakulayo madluum loo gargaaro wax badan oo khayr aan sameyn jirnay kii xagee aadaya wuxuu aslamta bima aslafta khayrkaad sameyn jirtay baa ilaahay sabab kaaga dhigay inaad islaanto oo laga yaabaa ka iyo ku kala lagu dardaray oo khayr ah ilaahay sabab inuu uga dhigay inuu ku islaamana waa dhici kartaa haddaan inta midna dhicin gaaladu wanaagga ay sameeyaan iyo ihsaanka iyo khayrka ay sameeyaan adduunka lagu jaazeeyaa lagu abaalmariyaa in adduunka ilaahay jazihiisa ku siiyo khayr kala adduunku helaa laga yaabaa laba gooraba adigana dimadaada iyo qoortaadii bari bay noqon isagana ma adduun buu ku intifaaci inuu aakhira ku intifaacana waa laga yaabaa hadduu muslim noqdana adiga qaankeeda ka baxsan marka u sadaqay khayr Allah ku siiyo billahi tawfiiq